waxaasoo dhan waa caadi yani diintu ma idee sariixatan odhan wax lama samayn karo haddii aanay dee taqyiir khalqi la ahaynoo qof maalan maxay rabaa inuu maalan dibinta oo kale ba intuu wax ku mudo dabeetana halkanna maxay bool yar kaga xidhaan wax kaga xidho dibinta adag wax yar ka lusha ama dibinta ama sanka wax ka lushaan ama halkan oo kale wax ka lushaan waxaasoo kale waa yani waa yar ciyaar suuqnimo wada arkaysa adba taas caqliga ku siinaya laakiin qofka maalan inta nabar kaga dhacay wejiga oo kale dee iskar adag intuu fuulay magaranaysa dhid adag ku samaysmay dee laga hagaajinayo magaranaysa si fiican looga hagaajinayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Somali Health Lifestyle One channelkaada aalaaba kala xidhiidhaan wixii caafimaadka quseeya. Maalmahan dambe waxaan arkaynay iyadoo social media-da la dhex wareejinayo muuqaallo ku saabsan dumar dibinta maxay garanaysaa dibinta wax ku muday si ay u weyneeyaan dibinta magaranaysaa size-keeda amaba u qurxiyaan laakiin adigu natiijooyin aan fiicnayn ba ka soo baxay. waxaan aragnay dad si fool xun loogu muday maadooyin badanaa dibinta lagu mudo ama meel kale oo wejiga ka mid ah lagu qurxiyo markaa sawirro fool xun magaranaysaa la wareejinayo iyo iyadoo wixii laga badbadiyey oo magaranaysaa sawir kale soo baxay meelo muqdisho ku yaalo oo la xiray waan maqlay hadda laakiin aan ogaano bal horta mawduucan oo maxaa tahay bal aan ogaano mawduucan maxay idea-da ka dambaysa iyo de sida magaranaysaa caalamka looga isticmaalo kow terminology-ga magaranaysaa loo isticmaalo kelmadaha loo isticmaalo arrinkan waxaa ugu horeeya in ay tahay magaranaysaa qurxinta skinka magaranaysaa muuqda marka kaasoo cosmetically yani aan odhan karno waa wax defective magaranaysaa wejiga ku jira ama maalan wax maxay qofkii yani cabanayay aan caawinahayn uu doonayo inuu ku yar qurxiyo wejigiisa marka waa cosmetic caadi wey cosmetology cilmiga qurxinta ama aesthetic wax loo yaqaano. haddaba intaasoo qaybood buu noqdaa haddii maalan meel iskaar ku yaallo maalan nabarra ku dhaceen wax laga jarayo la hagaajinayo magaca gooniyu yeelanaya haddii meel magaranaysaa kalarkeedu isbedelay la hagaajinayo magac kaluu yeelanaya aan u nimaadno marka haddaba dibin ama maalan maxay yani indhaha hoostooda ama maalan wejiga meel ka mid ah lasoo kuusayo magaranaysaa la rabo in kor loo soo qaado waxaa loo yaqaanaa filling ama filler. okay marka fillerkan waxa weeye waa maadada lagu mudayo fillingkuna de waxa weeye waa ficilkii dee caadiga ahaa magaranaysaa present continuous tense-ka ahaa hadda dhacay marka maadada lagu mudo meesha maxay loo yaqaan مثلا dibnaha oo kale ama eyelids-kaas oo kale ama forehead-kaas oo kale ama meelahan eegida magaranaysaa isha hareeraheeda ama cheeks-ka lagu mudo waxa loo yaqaanaa waa maado la yiraahdo hyaluronic acid waa maado maxay acid ah acid wax jarjaraysa ma hadda laakiin yani somehow de sida مثلا amino acids-ka ama proteins-ka maxay jirkeena ku jiro kale ka mid yahay magaranaysaa. okay marka hyaluronic acid waa maado jiidanaysa aan active ahayn aad uma active aha marka haddii active badan ahaan lahayd jirku wuu diidi lahaa wax weey waa maado aan jirku diidahayn oo yani sida naturally yani ku jirta jirkeena sida مثلا indhaha gudahooda kale hyaluronic acid baa ku jira qofka مثلا maxay issue markaas wax noqoto ishiisu wata shuuqda yaraata marka hyaluronic acid fara badan ka baxay waxa kale ku jirta مثلا joints-ka meelaha maxay la fogsigi maadaan si jilbaha oo kale lugaha oo kale meelahan oo kale elbows-ka oo kale meel kasta oo مثلا maxay joint waxa ku jira wax loo yaqaan hyaluronic acid oo keeni kara in lubrication uu sameeyo magaranaysaa area-daasi saanay labada lafood soo xoqin ama مثلا maxay yani socodku uu noqdo socod smooth ah. haddaba maadadaas oo loo yaqaano hyaluronic acid ama HA ayaa la diyaariyaa iyadoo qof laga soo saaray iyadoo si kale maxay laboratory loo diyaariyay bacteria maxay noocyada qaarkeed ba maxay la isticmaalaa si loo diyaariyo qamantida maxay qaarkeed haddii laboratory la geliyo maadooyinka lagu daro waxa ka soo baxaya hyaluronic acid adu almuhim maadadaas ayaa waxa lagu mudayaa dibnaha meelo ka mid ah sida مثلا sawirkan oo kale inooga muuqata dibinta maxay yani halkeedaas oo kale iyo halkeedaas oo kale iyo halka bartanka iyo halkan maxay hoose marka intaas oo dhan hadaan sheegay inteeda kalena waxa sida muraayad oo kale marka dad dibinta aragto maxay halka marta kale lagu mudaa halkaas oo kale lagu mudaa halkaas oo kale lagu mudaa way halkeeda kale lagu mudaa halkaan lagu mudaa. okay inta marka hadaba arrimo marayaan
intee in leeg baa lagu mudayaa kolba waxaa qiyaasaya doctorka magaranaysa cosmetology-ga ku takhasusay oo haddii mesela maxay dibinta la doonaya in dibinta kale leelekeysiiyo waxyaan ku mudaya yani dhowr millimeters yar ku mudaya haddaba haddii mesela irbada aad ku mudayso oo insulin oo kala ah aad yani si fiican aanad ugu tababaran maxay ku mudideeda laga yaabaa markaad sidaa ku tiraahdo inay alaab dhan magaranaysa ku socoto dibintii taasoo leekaato marka taad foolxumada keentaa waxa weeyaan in qofka gacantiisu aanay fadhiyin oo aanu la baran sida loogu mudayo waxyaalaha hyaluronic acid-ka ama any other filler material. ta kale waxaa dhici karta qofku inuu xasaasiyadiisu ay cirka tahay oo ay keeni karto in magaranaysa maadadan marka lagu mudo ay jirkiisu diido. marka markii ugu horreysay baa ahayd in la tijaabiyo jirkiisa meel yar oo ka mid ah sida halkan oo kale ayaa lagu mudi karaa skinkiisa lagu mudi karaa wax weyn maaha. waxaa markaa la ogaanayaa haddii jirkiisu diidayo within 24 hours ama 48 hours maximum hadduu ku diido jirkiisu and we cannot inject it on the face is a danger movement we cannot taas qaarkood ma sameeyaan lacagta maxay laga qaadanayo aad u qaaliya iyo waxyaabahaas ma garanaysa dadku ku cararaan dabtan ma eegaan sensitivity test ma sameeyaan taas waa cool. waxa kaloo dhici karta inaanay dee sensor shayna tababar fiican haysano ay kaga badato marka adigu yani fadhiixadaha waxa soo saara oo badanaa qofkii dibintu weynaatay oo magaranaysa foolxuma ka soo baxday haddii qofkii intii lagu mudo oo si fiican oo smooth lagu mudo oo magaalada iska galo oo wax dhibaatayna soo bixin dee waana sida maxay caalamka oo dhan ka dhacda dee cidina may ogaateen cidina kama hadasheen yani sawir foolxuna ma soo baxeen laakiin waxa weeye waa khibrad darrada iyo magaranaysa isdhexyaa magaranaysa arrinkaas u wato. arrintan waxa weeye arrin aad u qurux badan oo dad badan ay sameeyaan caalamka oo dhan waa laga sameeyaa adigu yani magaranaysa fadhiixado fanaaniinta iyo waxyaabahaas la raaciyaada way jirtaa laakiin dee qofka wejigiisa qurxinaya dee isaga wax hora maadadana maadada xaaraana maaha dee maalan yani maaha taatooga la isku maxay washing oo kala maaha qof dee sunayaashiisa xiirayo kala maaha dee sida qaarkood sameeyaan dee qof dibintiisu magaranaysa labada dibnood oo kala gaaban ama dibnihiisu maxay qaybi ay yar tahay dee hagaajinaya magaranaysa even the breast naasoo kale haddii lagu mudo waa caadi wax dhibaato ma laha. silicone baa dumarka qaarkood ay sameeyaan oo haddii magaranaysa ay rabaan inay wax ka bedelaan maxay muuqaalka waxaasoo dhan waa caadi yani diintu may dee sariixatan oo dhan wax lama samayn karo haddii aanay dee taqyiir khalqi la ahayn oo qof maalan maxay rabaa inuu maalan dibinta oo kale ba intuu wax ku mudo dabeetana halkan maxay bool yar kaga halkan wax kaga xiro dibinta adag wax yar ka lusha ama dibinta ama sanka wax ka lushaan ama halkan oo kale wax ka lushaan waxaasoo kale waa yani waa ciyaar suuqnimo wada arkaysa taas caqliga ku siinaya laakiin qofka maalan inta nabar kaga dhacay wejiga oo kale dee iskar adag intuu fuulay magaranaysa dhid adag ku sameysmay dee laga hagaajinayo magaranaysa si fiican looga hagaajinayo kaasoo kale sidoo hagaajinayo dibintiisana hagaajinayo wax dhibaato kuma jirto. marka waxyaabo badan baa jirto aynu saas ugu dhex walaaqayno yani aynu magaranaysa nuxurkii ka saarayno. maadadan haddaba maadadani faa'iidada ay jirka u leedahay maxay waxa weeye maado biyaha la falgasha hay'adaha hyaluronic acid biyaha ayuu la falgalaa waxa weeye waa water soluble material way. marka biyo badan marka la falgalo biyaha ayuu xijinayaa meeshii marka maxay lagu muday biyo badan baa ku jiraya markasta all the time biyo badan baa haynaysaa waana meel magaranaysa yani nourishment-keedu fiican yaho aad arkayso inay magaranaysa noolshahay وجيل محيد قلالي معها وجيل محيد بيه فربنا هيستو hydrated sidoo kale soo buuran ama soo kuusano aan dib u dhacsanayn ila qofka marka مثلا oo starvation galo ama dehydration oo galo مثلا oo saxara maro maxay indhihiisu la gutaan indhihiisu waxa ka soo guteen oo yaabayso dee faanta qof marka in badan shubma carruurta marka in badan shubanto maxay indhooda la gudmaan day waxa weeye biyo badan ma baxay marka biyahan maxay keenan jirku inuu maxay soo kuusmo oo jirtiisa soo nool noqdo اوكي المهم hyaluronic acid وماده يعني lacag badan ku joogta caalamka waxa laga yaabaa maxay one session oo maxay qofku sameeyo waxa maxay bixin karaa around $300 $400 meelaha suuq qaarkood bixiyaan kolba waxay ku xiran tahay doctorka iyo khibradiisa iyo meeshiisa sida maxay wala ku wada tahay marka maadadani waa maadada dadku si fiican isugu qurxiyaan laakiin inaan magaranaysaa wixii yani foolxumo ka soo saarno dadka hataa mudaya ayagu magaranaysaa foolxumo maxay ay uga dhacaano ay dee si isdhexyaa u sameeyaan iyo waa laga qurux badan yahay maraakiis fara badan oo wadanka kusoo biiri lahaa hataa way hor istaagayaan
فيديوغان هادو يهي فيديوغا ugu horreysay adiga aragto fadlan like saar subscribe saar channelka share kare assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Somali healthy lifestyle one channelka alaba caafimaadka kala xiriiraan wixii qusaya peace